waxaa si lamid ah sida dunida islaamka saaka lagu ogay salaada ciidul adxada magaalada Cerigab ee xarunta gobolka dalxiiska iyo awooyaasha Sanaag. Salaada ciidul adxada ayaan saaka lagu tukan garoonka kubadda cagta ee magaalada Cerigab kadib roobab maalmihii u dambeeyay ka da'ay magaalada Cerigab ee xarunta gobolka dalxiiska iyo awooyaasha Sanaag. Barsaabka gobolka Sanaag Injineer Axmed Cismaan Xasan iyo waliba wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Sanaag iyo waliba culimada diinka kala duwan ee dalka ayaa qayb ka mid ah shacabka magaalada Cerigab kula tukaday jaamaca weyn ee magaalada Cerigab. waxaan ugu horeyntii halkaasi ka hadlay sheekh beledka magaalada Cerigab iyo waliba qaar ka mid ah culimada diinka kala duwan ee gobolka. horta ilaahay kaligiin aan caabudno wuxuu kala nolol yimi oo waxyaabuhu nolol yimi kamid aha inaan runta ku dadaalo inaan waxa weeye runta aan beenta aan sheegno oo ka dheeraano inaan raximka iyo qaraabada aan goon oo xiriirino jaarka inaan hagaajino dhiigaga inaan iska ilaalino oo baanan dhiigayaga daadin aanu maxaarimta ilaahay iska ilaalino markaas ugu celceliyay tii ciida iyo tii arafa iyo tii mina ayaan aniguna idinku leeyahay saddexdaasi waxay ahayd in rasuulku yiri naftiina iyo maalkiina iyo cirdigiina waa kala xaraansan yahay dad iyo muslimka ah haddii ay ummaddu dhiigeeda iyo maalkeeda iyo cirdigeeda ay banaysato if ya aakhira seeg weey waxaanu kacay dad badan baa xanuunsanaya isbitaalada Hargeysa Cerigab shalay soo maray fariinta kaliya soo faray waxaan walaalaha muslimiinta caafimaad qaba maanta iyaga taajkii xiran caafimaadka waxa la yiraahdaa caafimaadku waa taaj ninka bukuumba arka geestooyana waxa halkaasi fariinta ciida bulshooyinka gobolka Sanaag uga diray barsaabka gobolka Sanaag Injineer Axmed Cismaan Xasan iyo waliba wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed waxaana shacabka gobolka Sanaag ugu baaqeen inay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo nabadgelyada gobolka wax u dhimaysa. shacbi weynaha gobolka Sanaag iyo ciidamada kala duwan ee ku sugan gobolka Sanaag dhamaantood oo aan leeyahay farxad iyo bashbash iyo barwaaqo ku ciida inta waxaan raacinayaa hal kelmad oo dhinaca nabadgelyada ah culimadu way ka hadashay waxaan leenahay nabadgelyada qof kasta waa u dan cidda oo xil saaran ee maamulka iyo dawladda uma xil saarnay ee dhamaanteen qof kasta oo inaga mid ah damba ugu jirta ma noolaan kara nabadgelyo la'aanteed nabadgelyada aan wada ilaashano iyadoo meelihii lagu tukanayay roob aawadii banaanadii loogu tukan karo waayo masaajidada lagu tukanay ilaahay maxadii waxa iyadoo aynu nabad ku wada ciiday mashaayikhda iyo wadaadadu aad bay uga hadleen anigu halkan waxaan idinka imi ceelaf weyn oo muddo joognay oo xafiisyadeedu u soo xidhnay 3 bilood iyo dheeraad waxaan halkan hambaliyada kooba idinka hambaliyaynayaa anigoo ku hadlaya ay soo fareen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliya Adnan Cabdirashiid Ali telefishinka caalamiga ee Kalson TV Cerigab.